waa munaasabad ballaaran oo habeenkii xalay lagu qabtay hoteelka Mansoor ee magaalada Berbera waxaana lagu shaacinayay labada musharax ee Xaliimo Xuseen Yuusuf oo u sharaxan golaha wakiilada ee gobolka Saaxil iyo Cabdiraxmaan Rooble Xuseen oo u sharaxan golaha deegaanka ee degmada Berbera waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga UCID Cuqaal Salaadiin haween dhalinyaro iyo marti sharaf kala duwan waxaana hoolka ay ka socotay munaasabadani soo buux dhaafiyay kumanaan kamid taageerayaasha labadani musharax ee caawa xalfadooda halkani lagu qabtay waxaana ugu horeyntii munaasabadaasi iba furay Cuqaal Salaadiin waxgarad haween iyo dhalinyarada soo xushay labadani musharax waxayna ay sheegeen inay taageersan yihiin labadani musharax waxaanu keenay laba musharax oo tayo leh dadku marna waxay doortaan magac marna waxay doortaan dad wax qabanayo tayo leh waxaanu keenay laba musharax oo tayo leh oo Somaliland oo dhan anfacaya oo xusbiga anfacaya ayaanu keenay waxaanay ka kala sharaxan yihiin golaha deegaanka iyo golaha wakiilada Xaliimo Xuseen Yuusuf waa musharaxad golaha wakiilada Cabdiraxmaan Rooble Xuseen waxa weeye musharax golaha deegaanka haddaan nahay dhaqanka iyo cuqaasha in badan waxa la yiri oo nagu soo noqnootay hablaha iyo inamadu miyaanay u siineen xaquuqda waa ka jawaabnay waa xaqiijinay waa u siman yihiin weynaga xaqiijinay in ilaahay waxa aynu u soconno inagu guuleeyo oo ah in aynu labada murashax inaynu hadalku yahay in ilaahay ku guuleeyo hawsha ay u soo fayteenay waxaynu u nimi inaynu saboorno labada murashax hawsha iyo xilka loo soo xulay waxa weeyaan Xaliimo Xuseen Yuusuf iyo Cabdiraxmaan Rooble ayaanu soo dooranay markaanu beeshayadaan nahay oo beesha Cumar Jibriil nahay maanta waxaanu soo saarnay laba murashax oo runtii aanu tayo aqoon cadaalad iyo runtii daacadnimoba aan UCID baan soo dhaweynayo golaha u fure UCID baanu u digaragonaye allow nagu taye waxa iyaguna halkaasi ka hadlay marti sharaftii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi waxaana ay si weyn u bogaadiyeen labadani musharax waxaan idin sheegay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka jamhuuriyadda Soomaaliland ee UCID inuu ka muday xisbiyada kale oo uu sharaxay haweenkii ugu badnaa hadday noqoto golayaasha wakiilada iyo hadday noqoto golayaasha deegaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Faysal uu ka muday musharaxiinta waxaan aad ugu qanacsanahay maanta beesha soo xushay iyo Soomaaliland iyo gobolka Saaxil wax badan ka bedeli doonaan aad baan ugu qanacsanahay anigu beesha Cumar Jibriil ee labadan musharax soo sharaxday waxaanu marxaati ka nahay inay keeneen laba musharax oo wanaagsan waxaan leeyahay bulshoy aynu qabsanno dhinaceena waxa iyaguna halkaasi ka hadlay musharaxiinta Xaliimo Xuseen Yuusuf oo u sharaxan golaha wakiilada ee gobolka Saaxil iyo Cabdiraxmaan Rooble Xuseen oo u sharaxan golaha deegaanka ee degmada Berbera waxayna si weyn ugu mahadnaqeen mudanta iyo marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay munaasabadoodani suldaanka iyo garaadada hablaha qiimaha iyo sharafta mudan ee halkan xafladan soo camiray cuqaasha iyo waxgaradka xafladan qiimaha iyo qadarinta mudan leh ku soo camiray dhalinyarada asxaabteeda kale ee ka yimi meelaha fogfog waxaan dareemaynaa mas'uuliyadana la saaray iyo bulshadana soo dooratay iyo cuqaasha iyo waxgaradkooda iyo dhalinyaradu iyo haweenkooduba inaanu sharaxnaano ama aanu tartanno labada gole waxaan iftiiminaynaa inaanu noqon doono dad u sima deegaanadaan ka soo jeedno ama bulshadaanu matali doono nooc kasta ay tahayba in ruuxaanta aanu cadaalad ugu sinaano qodobka ugu horeeya waxaan oranayaa gudoomiye Faysal Cali Xuseen gudoomiye horta marka hore waad mahadsantahay inaad aqbasho waxaan ku sheegayaa beesheedu inay tahay beelaan guurguurin waa taqaanaa Cumar Jibriil ma guurguuro meel buu degaa ka uu degana wuu ku nastaa oo rasmi buu ku noqdaa
waxaan u mahadnaqayaa madax dhaqameedkayga oo suldaanku ugu horeeyo waxaan u mahadnaqayaa caaqilada waxaan leeyahay waxaan idinku mahadnaqayaa inaan aniga oo dumar ah oo dumarka Soomaaliland aanay aad u jeclayn inaad raggii aan iga doorataan inagoo reer ballaaran ood isoo taagtaan halkan ood igu ballan qaadaan codkiina oo ay iska garab taagtaan oo ay galbisaan oo xisbi geysaan aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin waxaa gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faysal Cali Waraabe waxaana uu sheegay in xisbigiisu uu aqbalay labadani musharax marka horeysa si laab furan oo farxad ku jirto ayaan labadiini musharax horta ka aqbalay haddaan nahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waa ka aqbalay Cabdirasaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka Badcas magaalada Berbera